bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a maamulka Puntland oo foodo iyo waliba dhibaato ku tilmaamay safarka Ra'iisul Khayre uu ku gaaray waqooyiga magaalada Galkacyo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar dhimasho dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka Mudug wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamtay madaxweynaha Addis Ababa oo kula kulmi doono dhigiisa dalka Kenya khilaaf u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo ka soo cusboonaaday magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi u diyaar garoobo qodobada oo faahfaahsan daawadayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkan maamulka Puntland ayaa foodo ku tilmaamay socdaalka Ra'iisul Khayre oo ku tagay waqooyiga magaalada Galkacyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamcad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ra'iisul Khayre daandaansi iyo foodo uu ka wado maamulka Puntland wuxuuna sheegay safarkiisa waqooyiga magaalada Galkacyo uu ku tagay inuusan kala tashan madaxda maamulka Puntland Ra'iisul Khayre ayaa safar ku tagay waqooyiga magaalada Galkacyo asagoo bulshada halkaas kula hadlay maamulka Puntland ayaa waxay tilmaameen in dawladda federaalka Soomaaliya daandaansi faragelin xoogan ay ku hayaan maamulka Puntland xilligan loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya arrinkaasi ka waantoodo maamulka Puntland ayaa horaan sheegay in xiriirku uu jaray dawladda dhexe Soomaaliya waxaana sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa saxaafadda sharafta leh inaad halkaan aanu soo nimaadna caaway waxaan rabnaa halkaan inaan ka soo jeedino shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku yimid magaalada Galkacyo ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka reer Puntland isimada waxgaradka ganacsatada dhalinyarada sidii aadka u wanaagsanayd saraakiisha iyo madaxdaba sidii aadka u wanaagsanayd ee loogu wada diyaar garoobay soo dhaweyntiisa markuu dalbaday inuu Puntland ku yimaado booqasho intii muddadii maadaama uu joogay magaalada Galkacyo dhanka Galmudug waxaan rabnaa halkaan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen annaga wasiiradayadan qayb ka mid ah shalay ayaanu nimid subaxii Galkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada Galmudug oo halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqeynay nabadeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca Puntland waxaan u nimid markaa inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay'adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaanu ku jiray kan Puntland ahaan u diyaar garowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay laakiin waxa dhacday in la isla afgaran waayay hanaankii loo soo dhaweyn lahaa oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego aeroboorada soo Puntland booqanaya baan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Galkacyo oo u soo gudbo dhanka Puntland ee Galkacyo waxaan nasiib darro ah aan rabnaa inaan idin la wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday ayna ku adkaysteen ra'iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqeynayay inay yiraahdeen annagu meeshaan uma imaan in maqaam naloo sameeyay protocol uma imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo laakiin waxaan u nimid waxaanu rabnaa inaanu dad banaanbax sameynaya aanu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan
ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horeeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhalinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas la mid ah in loogu diyaar garoobaya haddii la haydmo halkan waxaanu ku haynaa jadwalkii aan idin la wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aan ugu talagalay soo dhoweyntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka Puntland muddada uu joogo arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la isaga ahaa Puntland iyo Galmudug hase yeeshee markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug ayadoo xoogaa dib u dhac jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xoga la xiriiray waxaa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas'uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday uuna yidhi anigu hanaana raaci mayo umana socdo inaan isimo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socdo waxa weeye dhalinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas'uuliyad ra'iisul wasaarenimo waxaan leeyahay ma ahan xasan cali khayre waa saaxiibka shakhsiyan aniga laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo aynu ognahay maantay heerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheelitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dawladnimo haddii aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay waxaan maqli jiray cimrigaaga dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanta waxaanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo Soomaaliyeed ma reer Puntland dad badan oo Soomaaliyeed nala arkaan waxa dhici karta kuwa badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhaweeyaan oo ay ku soo dhaweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah waxaan rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh saaxiibada ayaan ku rajaynayaa aad baan faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar dhimasho dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka Mudug inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku dhimatay tareyntaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib markii diblay hubeysan ee rasaas hubiyeen gaari marayay duleedka magaalada Galkacyo waxaana la soo sheegayaa in dadka qaar iminka dhaawacooda lagu baxnaaninayo isbitaalka weyn ee gobolka Mudug diblaydan rasaasta hubisay gaariga ayaa la sheegin halka sida rasmiga ah ay kaga yimaadeen balse maamulka Galmudug ayaa sheegay in iminka ay ku raad joogaan dhacdadan cidii sida rasmiga uga dambeysay magaalada Galkacyo ayaa waxa ku soo laabtay falalka naxdinta leh iyadoo ahayd dhawaan in halkaasi lagu dilay 9 ruux oo isku qoysa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa beenisay in madaxweyne Farmaajo Addis Ababa kula kulmayo dhigiisa dalka Kenya warar maalmihii dambe la isla dhaxmarayay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Kenya uu kula kulmayo madaxweynaha dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay in magaalada Addis Ababa madaxweyne Farmaajo uu kula kulmayo dhigiisa dalka Kenya warar been abuur ayaa maalmihii dambe la isla dhaxmarayay ka ku aadanaa in madaxweyne Farmaajo Addis Ababa uu tagayo inuu la kulmo dhigiisa dalka Kenya dhadhaxaadintan ayaa la sheegay in garwadeen uu ka yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Masar Abiy Ahmed gorgortanka madaxweyne Farmaajo la galayo ayaa la sheegay inuu ku aadan yahay
badda Soomaaliya ay Kenya muranka gelinayso waxaana la tilmaamayaa in madaxweyne Farmaajo cadaadis xoogan uu kaga imaanayo dalka Ingiriiska iyo Mareykanka madaxweyne Farmaajo ayaa dhalasho Mareykan haysta walow cadaadis xoogan uu kaga imaanayo labadaasi wadan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in warkaasi uu yahay mid waxba kama jiraan xilligan ay suurtagal ahayn in madaxweyne Farmaajo gorgortan uu ka galo badda Soomaaliya ay Kenya muranka gelinayso khilaaf xoogan oo u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka Hirshabelle ayaa soo cusboonaaday walow xildhibaanada maamulka Hirshabelle uu kala jabeen laba dhinac waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle kuwa oo kala taageersan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Canab Axmed Ciise khilaafkan ayaa salka ku haya kulamada baarlamaanka uu gudoomiyay Cusmaan Barre uu sheegay inay xiran yihiin halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Hirshabelle ay sheegeen in sharci darro ay tahay go'aanka guddoonka baarlamaanka Hirshabelle isla markaana kulamadu ay furan yihiin xalay magaalada Jowhar waxaa kulamo xasaasi ah ku yeeshay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Hirshabelle waxaana kulamadaasi ahaayeen kuwa looga arrinsanayay sidii loo qabsoomi lahaayeen kulamada baarlamaanka Hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa qoraal u diray xildhibaanada wuxuuna ku wargeliyay in si degdeg ah xildhibaanada ay isugu yimaadaan magaalada Jowhar si kulamada baarlamaanka ay u sii socdaan wararka qaar ee la helayo ayaa sheegaya in xildhibaanada ku sugan magaalada Jowhar ay diyaarinayaan mooshin ka dhan ah guddoonka baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed oo haatan ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warkii aad ka daawanayseen ratraaca wararka daawadayaal waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar channelkan si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya